bismillaahi raxmaan iraxiim soo dhowaada saaxiibayaal waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyey xaaladdu aad bay u adag tahay oo duqaymo ayaa la isweydaarsanaya dhawaaqa gantaalada ka hortegaya weerarada ka imaanaya hadba labada dhinac ayaa qabsaday magaalooyin badan waxaan eegi doonnaa wararkii ugu dambeeyey iiraan warka ay soo saartay iyo mawjadaha kale ee weerar ee ay la kulantay nidaam difaaciidyadooda iyo siday u shaqaynayaan soo dhowaada saaxiibayaal mas-uuliyiin ka tirsan ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa waxay shaaci ka qaadeen in 150 goobood ay bartilmaamaysadeen gudaha israa'iil weerarkii jawaab celinta ahaa ee ay qaadeen waxaana ay ku tilmaameen in weerarka jawaab celinta inuu ahaa mid ay ugu magac dareen ballanqaadkii saddexaad waxay sheegeen inay bartilmaamaysadeen xarunta saldhigga ciidamada novatim lagu magacaabo saldhigga ooda wasaaradda gaashaandhigga taliska hay-adda sirdoonka iyo xarumo kale oo ku yaala magaalada talaabiib oo caasimadda israa'iil ah waxaa sidoo kale ay sheegeen nidaam difaaceedkooda in heegan buuxa uu ku jiro sidoo kalena ay ka hortageen duqaymo iyo diyaarado daroon oo lagu weeraray gudaha iiraan kadib markii iyaga ay fuliyeen howlgalkii jawaabta ahaa ee ay ugu magacdareen ballanqaadkii dhabta ee saddexaad waxaana mas-uuliyiinta dowladda iiraan ee u sheegeen wakaaladda wararka ee tasniim in nidaam difaaceedkooda gobolka kermanshah lagu magacaabo uu ka hortegay dhowr diyaaradood iyo sidoo kale gantaallo gobolkan wuxuu ku yaalaa galbeedka dalkaasi iiraan sidoo kale magaalada tehraan oo caasimadda dalka iiraan ah waxaa nidaam difaaceedka uu ka hortagay diyaarado badan iyo gantaallo iyadoo xaaladdu ay isu beddeshay dhawaaqaas iyo ka hortegidooda inay maqlaan dadka shacabka ah oo caawa xaaladdu aad bay u adagtahay xilli dambe ayaa hadda la joogaa oo labadii habeennimo iyo ka badan waxaana aad u adag marka in dadku ay hoydaan iiraan waxay sheegtay inay ku guulaysteen bartilmaameedyadoodii rasmiga ahaa ee caawa iyo howlgalkooda waxaa kaloo ay sheegeen in weli mawjado kale oo weeraro ay ku qaadi doonaan israa'iil haddii dhankooda weerar kale ay soo qaadaan marka la eego khasaaraha in ka badan 60 ruux ayay israa'iiliyiintu ay ku dhawaaqeen in ay ku dhaawacmeen weeraradii ugu dambeeyey duqa xaafadda ramadgan lagu magacaabo oo magaalada talaabiib ka tirsan wuxuu si cad u sheegay in ka badan 100 ruux ay caawa guryo la'aan ay yihiin waxaa sidoo kale la sheegay in 9 dhismo oo xaafaddaasi ku yaalay gantaalada iiraan ay ku dhaceen taasoo khasaaraha sii kordhisay inkastoo israa'iiliyiintii warbaahintooda ay aad ay u qarinayaan ama ay uga gaabsanayaan macluumaadyo rasmi ah mana jiro faahfaahinno madax bannaan oo laga helayo gudaha magaalada talaabiib oo caasimadda israa'iil ah marka 100 ruux waxaa la sheegay inay guryo la'aan yihiin oo dhismayaasha dhulka hoostiisa ah qaarkood la siciyey halka qaarkoodna la sheegay in ay maamulka israa'iil si gaar ahaaneed ee goobo gaar ah ay u geeyeen kadib markii gantaalada iiraan ay burburiyeen dhismayaashii ay degganaayeen israa'iil marka dhankooda faahfaahinno kale ma aysan bixin laakiin hadda waxaa lagu warramayaa inay bilaabeen diiwaangelinta iyo qorashada ciidan cusub kuwaasoo la sheegay in lagu biirinayo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee israa'iil sida telefishinka aljaziira uu baahiyey marka arrintan ayaa maanta si rasmi ah loo bilaabay wixii ka dambeeyey markii iiraan weerar lagu qaaday iyagoo laga baqayo waxyeello israa'iiliyiinta soo gaarta dhismayaal badan oo dhulka hoostiisa ayaa lagu diyaariyey xarumo caafimaad dhaqaatiirta ayaa heegan la geliyey mar walbaana israa'iil way filaysanaysay jawaab noocaani oo kalea inay ka imaan karayso iiraan muuqaalada ugu dambeeya oo dhanka iiraan ka imaanaya aan eegno magaalada tehraan oo caasimadda dalka iiraan ah nidaam difaaceedka ayaa la arkaya oo si weyn u shaqaynaya kana hortegaya duqaymihii ka imaanaya dhinaca israa'iil hawada sidaad aad aragteen ayay isu bedeleen nidaam difaaceedkii ayaa waxa uu burburinayaa gantaalada ka imaanaya ee dhinaca iyo israa'iil maadaama israa'iil weerar aad u xoogan ay qaadeen markii iiraaniyiinta ay bartilmaamaysadeen magaalada talaabiib oo caasimadda israa'iil ah muuqaalada kale ee lasoo bandhigaya ayaa muujinaya in la bartilmaamaysaday agagaarka deegaanka yaftabaad lagu magacaabo deegaankan waxa uu dhacaa koonfur galbeed magaalada tehraan oo caasimadda dalka iiraan ah waxaana soo baxaya 1 ilaa 2 gantaal inay ka baxsadeen nidaam difaaciidyada dowladda iiraan maadaama 100 gantaal hal jeer lagu tuuray nidaam difaaciidkana aad loo mashquuliyey sidoo kale waxaa soo baxaya shaki laga qabo in diyaaradaha casriga ah ee israa'iil ay isticmaalayaan hawada ciraaq halkaasina ay weerarka ay ka soo qaadayaan inkastoo dowlado badan oo gobolka ah gebi ahaanba ay diideen in hawadooda loo isticmaalo iskahorimadyada iiraan
iyo israa'iil u dhexeeya. sidoo kale israa'iil caawa goobaha ay gantaalada ay ku garaaceen waxaa ka mid ah degmada tobnaad oo magaalada tehraan caasimada dalka iiraan ku taala iyo xarumo kale oo muhiim ah oo galbeedka magaalada tehraan ah. tusaale ahaan waxaa la sheegay inay weerareen agagaarka deegaanka lagu magacaabo starkhan oo isla magaalada caasimada ka tirsan. waxaana la arkaya oore cirka isku shareeraysa, waxaana loo badinayaa mid ka mid a gantaaladii halkaasi lagu weeraray inuu ka baxsaday nidaam difaaceedka dowladda iiraan. xaaladdu aad bay u adag tahay, waxaana soo baxaya in sidoo kale gantaalo badan la arkayo oo ka soo baxaya agagaarka xaafadda bastuur lagu magacaabo. xaafadan waa halka uu ku yaalo guriga uu degan yahay ayatullaahi cali khomeni. aad baa loo ilaalinaya guud ahaan amniga. sidaan barnaamijkeennii hore idinkula wadaagnayna waxaa la geeya nidaam difaaceedyo. madaxtooyada ayaa sidoo kale lagu waramaya in aad loo difaacayo. waxaa sidoo kale soo baxaya in dowladda iiraan ay galbeedka dalkaasi ay ku soo riday dhowr gantaal iyaga oo ka hortagay weerarada dhinaca iyo israa'iil ka yimid. israa'iilna waxay u muuqataa inay ka jawaabtay durba weerarkii dowladda iiraan ay ku qaaday caawa magaalada Tel Aviv. dhawaaqa qaraxyo xoogan ayaa sidoo kale goordhow laga maqlay xarun aad u weyn oo ciidanka militariga ee dowladda iiraan ay leeyihiin. xaruntan oo ku taalla wadada mucallim la yidhaahdo oo magaalada tehraan oo caasimada dalka iiraan ah. haweenaydan oo kale waa haweeney israa'iili ah, waxay la barooranaysaa waxay la soo gaartay dhismihii ay lahayd. waxay taagan tahay gurigan shalay oo keliya ayaan dhismihiisii iyo wixii ku saabsanaa idil soo gabagabay, furihiisiina la wareegay. caawana gantaalada iiraan ayaa iga burburiyey. israa'iilna waxay markii ugu horreysay ay shaacisay in mid ka mid a dadkii ku dhaawacmay duqayntii jawaabta ee dowladda iiraan in dhaawacii soo gaaray u geeriyootay haweeney oo xaaladeedu ay aad u liidatay. sidoo kale waxaa soo baxaya seeriga degniinta in ay isqabsadeen meelo badan oo ka mid ah gudaha israa'iil. waxaana la actiif gareeyay sida la sheegay nidaam difaaceedka magaalooyin dhowra oo israa'iila iyagoo ka baqanaya jawaabta dowladda iiraan. waa mawjadii saddexaad ama weerarkii saddexaad oo iiraaniyiinta ay qaadaan iyagoo ka jawaabaya duqaymihii kaga yimid dhanka iyo israa'iil. waxaa markii ugu horreysay warbaahinta la hadlay genaraal fahiidi oo ah taliyaha cusub ee maanta la magacaabay. waxaana uu sheegay in howlgalka ay ugu magacdareen ballanta dhabta ah ee saddexaad inuu sii socon doono ilaa inta lama huraanka ah, taas oo ka dhigan inay iyagana ka jawaabeen hadalkii ka soo yaray israa'iil ee ahaa in maalmo howlgalladu ay socon doonaan. dhinaca kale gantaallo laga soo tuuray galbeedka magaalada tehraan oo caasimada dalka iiraana ayaa qaarkood lagu waramaya inay ku dhaceen magaalada Tel Aviv oo caasimada israa'iila. sidoo kale waxaa soo baxaya dhawaaqa qaraxyo xoogan in goordhow oo caawa xili dambe ah weliba laga maqlay magaalada Tel Aviv. seeriga digniintana weli waa uu ishaystaa qaybo badan oo ka mid a gudaha israa'iil. hawada magaalada qudus ayaa la arkaya qaar ka mid a gantaalada iiraan ee balastiiga ah oo ay kasii gudbayaan. gantaaladan ayaa keliya 7 daqiiqo ku gaari karaya bartilmaameedka. muuqaaladii ugu dambeeyey ee hadda lasoo bandhiga ayaa muujinaya marka dab xoogan oo ka kacay magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale. waxaa sidoo kale la arkayaa gantaalka dowladda iiraan oo ku dhacaya dhismo 50 biyaano ka koobnaa oo ku yaala dhowr biyaano ka koobnaa weliba in ka badan 40 ilaa 30 kaas oo ku yaala magaalada Tel Aviv oo caasimada israa'iil ah. gantaaladan iyo muuqaaladan aad arkaysaanna waa hawada guud ahaan ee magaalada Tel Aviv. qaarkood nidaam difaaceedyada ayaa ka hortagaya, qaarna way ka baxsadeen oo caasimadu Tel Aviv aad ayay weli u gubanaysaa. sidoo kale nidaam difaaceedyada israa'iil ayaa mar kale ku fashilmay inay ka hortagaan weerarada hadda ay ka yimid xilligan aan kula hadlayaba magaalooyinka dalka iiraan. qaybo badan oo magaalada tehraan ka mid ah ayaa xaaladdu ay aad u adag tahay oo la arkaya nidaam difaaceedyada iyo sida ay uga hortagayaan diyaaradaha iyo gantaalada israa'iil. xaaladdu aad bay u adag tahay. waan arki doonaa arinta tehraan iyo waxyaabaha ka soo kordha nidaam difaaceedkooda, laakiin wuxuu u muuqanayaa markan inuu si weyn uu u howlgalay uuna ka hortagayo gantaalada dhinaca iyo israa'iil ka imaanaya, inkastoo aad loo jaamgareeyey. waxay la tacaalayaan weerarada tooska ah ee israa'iil ka imaanaya iyada oo sida la sheegay la bartilmaameysaday goob uu ku sugan yahay hogaamiyaha sare ee dowladda iiraan ayatullaahi cali khomeni iyo xarunta madaxtooyada, halkaasoo uu joogo madaxweynaha dowladda iiraan sida ay baahinayaan warbaahinta reer galbeedka. muuqaalada iyo sawirada aan idinla wadaagay qaarkoodna waxa ay muujinayaan
iyada oo si gaar ahaaneed loo difaacayo hoyga uu ku sugan yahay aayatullaahi cali khomeni. madaxweynaha faransiiska wuxuu si cad u sheegay in ciidankiisa ku sugan bariga dhexe heegan buuxa la geliyey, waxaana si adag ugu boorinayaa muwaadiniinteenna buu yidhi inaysan u safrin bariga dhexe. waxa uu si cad u sheegay inay ka soo horjeedaan iiraan inay yeelato hub nukleer ah. mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa waxay sheegeen in maraykanku isku dayey in uu ku qaldo wadaxaajood been ah, haddana dhinaca kale waan adkaysanay buu yidhaahdeen oo waan iska caawinay isla weynidooda, waana ka hortagnay weerar kasta oo dhankooda ka yimid. iiraan waxay u muuqataa marka inay waddo duulaan kale oo aad u adag, iyada oo hadda laga arkaya xadka dalka jordan iyo israa'iil in halkaasi ay buux dhaafiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda iiraan. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda iiraan inta badan looma adeegsado weeraro dhammaystiran ee waxaa lagu jibiyaa nidaamyada difaaca, iyada oo la xaqiijinayo weerarada gantaalada inay si sax ah ay u gaareen bartilmaameedyada. howlgalka dowladda iiraanna waxa u muuqanaya inuu sidaa uu u dhisnaa. senator amerikan ahna waxa uu sheegay in madaxweyne donald trump looga baahan yahay inuu aad u taxadaro, mar kalena maraykanka uusan ku jiidin dagaal sababtiisa uu leeyahay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu. ma ahan buu yidhi in mar kale aanu galno dagaal u adeegaya danaha xukuumadda benyamin netanyahu. xaaladda weliba aad bay u adag tahay. aan eegno wararka kale ee soo kordhay. tirada dadka ku dhaawacmay duqeymihii iiraan ayaa weli sii kordhaya, inkastoo magaalada tel aviv xaaladdu ay aad u adag tahay, haddana tehraan ayaa laga maqlayaa dhawaaqa qaraxyo xoogan. wararka qaar ee soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil iyo ra-iisul wasaare benyamin netanyahuba ay caawa ay ku jiraan ama ay ku dhumaalaysanayaan dhufays baqaar ah oo aad loo adkeeyey sida la sheegay, waxayna u badan tahay dhulka hoostiisa inuu yahay. warbaahinta israa'iil ayaa sidaa baahinaysa. madaxweyne trump caawa telefoonadiisii ayuu weli wadaa. madaxdii dowladaha bariga dhexe ayuu la hadlay. iminkana waxaa lagu waramayaa inuu la hadlay ra-iisul wasaaraha dowladda ingiriiska, faransiiska iyo sidoo kale maraykanka. iyaga ayaa si adag u difaacaya israa'iil, waana sababta uu u leeyahay madaxweyne emmanuel macron heegan buuxa ayaan gelinay ciidankeenna ku sugan wadamada bariga dhexe. iyadoo caawa laga maqlayo dhawaaqa qaraxyo xoogan agagarka xaafadda uu degan yahay aayatullaahi cali khomeni, ayaa haddana mas-uuliyiin ka tirsan golaha amniga qaranka ee israa'iil, gaar ahaan taliyaha amniga qaranka ee israa'iil tazaji hanegbe ninka lagu magacaabo, waxa uu si cad u sheegay in uusan jirin ilaa iminka qorshe cad oo ay doonayaan inay ku qaarijiyaan aayatullaahi cali khomeni. muqlata haddii ay fursad ku helaan in ay dhaafayaan aragtidaada waad nala wadaagi kartaa. dhinaca kale israa'iil waxaa dhankeeda ay xaqiijinaysaa inay iiraan mawjado kale oo duqaymo ah ay ku soo weerartay magaalada tel aviv iyo magaalooyin kale. netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiggana dhulka hoostiisa ayay weli ku jiraan. aan eegno macluumaadyada kale ee soo kordhay. xaaladdu aad bay u adag tahay. daqiiqad kasta isbeddel ayaa dhacaya, waxbaa soo kordhaya. dowladda masar waxaa lagu waramayaa heegan buuxa inay dhankeeda ay gashay. turkiga sidaas oo kale, maadaama xuduud uu la wadaago dowladda iiraan. arrintu waxay u muuqanaysaa marka dagaalku inuu aad u sii xoogeysanayo oo dhanka gobolka ah. israa'iil weerar ayay fulinaysaa, iiraan way ka jawaabayaan. marka dagaalku uu ka weynaan karayaa baa laleeyahay sida la saadaalinayo hadda midka u dhexeeya iiraan iyo sidoo kale israa'iil. gantaallo balastiig ah ayay iiraan hadda ku weerartay waqti xadirkan aan hadlayaba magaalooyinka waaweyn ee gudaha israa'iil. qaarkood gantaaladii ay dowladda iiraan mar kale ay ku soo jawaabtay ayaa lagu waramayaa inay ku dhaceen magaalada tel aviv iyo agagaarka magaalada qudus. waan arki doonaa arrimahan oo idil waxyaabaha ka soo kordho. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.